waxaa magaalada Qardho ka dhacay mudaharaad lagu taageerayo dib u doorashada madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam sidoo kalena looga soo horjeedo faragelinta ay sheegeen in maamulkaas ay ku hayaan madaxda dowladda federaalka Soomaaliya qaybaha kala duwan ee bulshada oo socod ku maray magaalada Qardho ayaa markii dambe isugu yimid bartamaha magaalada waxayna sheegeen duulaanka qaawan ee lagu qaaday Jubbada Jubbaland magaalada Kismaayo iyo Axmed Madoobe taasoo uu hogaaminayo duulaanka qaawan oo hogaaminayo ninka la dhahay Xasan ninka la dhahay maxruunki magaciisa waan ilaaway ninkii meydka Xamse meyd uu qaaday waxa la yiri godinteera ima goysteen hadaan gibilkay kugu jirin Xasan kuma dhiiradeen inuu Jubbaland ciidan u diro kuma uusan dhiiradeen hadii uusan amar ka haysan Xamse ka haysan Xamse aduusan ka haysan kuma dhiiradeen waxaan leeyahay Xasanow ka tanaasul duulimaadka aad qaaday ka tanaasul dhibaatada hurinayso maadaama shacabka Qardhood gaar ahaan dadka ka soo jeeda dawladda deegaanka iyo Jubbaland waxaan leenahay gariya gardarraba anagu Axmed Madoobe aan taageersanahay madaxweynahaas madaxweyne noo ah Xasan Sheekh lama matalo ninka la Xamse lama matalo waxaan leenahay Xasan Sheekhow hadaadan ka joogin Jubbaland duulaanka ku qaaday wixii halka ka dhacay ka mas'uula annaguna waxa way Xamse ninka la dhoo waxaan garab taaganahay Axmed Madoobe waxaan leenahay hore u soco u jiro joog wirigaaba joog cid ka kacayn ka dhana male marka waxa way asaasan ugu soo banaan baxnay waxaan leenahay hambaliyo adeer macaan adaare dalkaagi baa joogtaa ninka kugu soo duulanay iska celi waxa ka dhalatay 18 milyan baad ka dhalatay daaroodo dhan heegan bay ku yihiin waxaan ku leenahay adeer hambaliyo cambaarayna Xasan Baraf baan halkan ka cambaarayna gardarrada cad ee duulaanka uu ku hayo magaalada Jubbaland oo ciidamada uu ku daabulayo warafka iyo warafka maxaa kulmiyaa la yiri waxa weeyaan doorashada Axmed iyo ciidamada lagu daabulayo Jubbaland maxaa kulmiye marka halka waxaan ka cambaarayna dawladda xukuumadda Soomaaliya oo Xasan Baraf hogaaminayo qaas ahaan gobolka Karkaar Xamse iyo Xasan Baraf waxaanu isugu nimi inaanu ku mucaaradno fashka foolxumada ay ka wadaan Jubbaland foolxumada ay ka wadaan iyo dhaqan xumada aan loo idman ay ku shaqeynayaan waa wax fadeexa leh waana wax xayuushnimo ah oo aan binaadnimada ka baxsan marka aad baan uga dhidhiyeynaa waana ka soo horjeednaa